waxaan maanta ka soo baxnay shir lagaga wada tashanayay habkii loo maareyn lahaa masiibadii dhacday ee suuqii gubtay ee Jigjiga. shirkaasi wuxuu ahaa shir laba geesood ah oo guddiyo isku dhafa ay ku shirayeen. maalmahan waxa socday shirar kala duwana oo aan arintaas kaga shiraynay. shirarkaas shirkii u horeeyay waxa lagu aasaasay guddi guud oo arrimahan hogaamiya sidii loo maareyn lahaa hooshii dhacday maareynta suuqii gubtay masiiba yahayd aan ka xunnahay dhammaantayo ku dhacday shacabkayagii danyarta ahaa iyo ganacsatadayadii. suuq saameyntiisa laga dareemayo nolosha maalinlaha ah ee magaalada Jigjiga ayuu ahaa. marka arintaas arin xukuumad ahaan qorshaha iyaga noo yaalay runtii khalkhal badan ku abuurtay bay ahayd. taasi loo xaliyay marka shaqo joogto ah baan ka dhiganay. inta xalka guud laga gaari doonana waxay noqon doontaa haddii alla idmo shaqo joogto ah inay noqoto. waxaana la aasaasay guddiyo kala duwan. guddiyadaas kala duwan 4 nooc bay u kala baxi doonaan haddii alla idmo. guddiga ugu horeeya wuxuu noqon doonaa guddiga guud maareynta howlaha suuqii gubtay. guddiga guud wuxuu ka koobnaan doonaa oo hogaamin doona marka koobaad xafiiska madaxweynaha. waxaana ka kooban 9 xafiis oo ay ka mid yihiin xafiiska maareynta masiibooyinka, xafiiska maaliyadda, xafiiska haweenka, warfaafinta, ganacsiga, nabadgelyada, xafiiska maamulka magaalada Jigjiga oo maayarka ah, iyo xafiiska arrimaha bulshada. 9 xafiis ayay ka koobnaan doonaan guddiga guud hogaamin doona howlahan dib u dhiska iyo maareynta suuqii weynaaye gubtay ee magaalada Jigjiga. waxaa jira guddi kale oo ka kooban qaybaha kala duwan ee bulshada oo ay ka mid yihiin waxgaradka, culimaa u diinka iyo ganacsatada magaalada Jigjiga. guddigaas iyaguna 9 xubnood bay ka koobnaan doonaan. si guud maadaama arintan ahmiyad gaar ah la siinayo aaminaad gaar ahna loo baahan yahay, waxaan xulanay dadkii labeynta ahaa ee bulshadaas saameynta ku lahaa. laguma koobi kara tiro in maaragtay dadka labeenteena ah qalin lagu wada qoro, laakiin waxaan isnidhi dadkii ugu muhiimsanaa ee bulshadu ay iska soo dooratay in ay noqdaan guddiga yaboha ururinta dhaqaalaha. guddigaasi waxay ururin doonaan dhaqaalaha, waxayna qayb ka noqon doonaan arinta maareynta suuqa gubtay iyagoo iskaashi la sameyn doono guddiga sare ee dowladda. guddigaasi 9 ka kooban magacyadooda waxaa ka mid ah 1 garaad kulmiye garaad maxamed dool, ugaas cabdilaahi cabdi, amiir sulub cabdi. 3daas xubnood waxay noqon doonaan dhinaca waxgaradka odayaasha dhaqanka deegaanka: sheekh axmed abi mataan, sheekh cabdiqaadir sheekh xuseen, sheekh cabdiqaadir siiro, sheekh xasan bare maxamed. 3daas xubnoodna waxay noqon doonaan dhinaca culimaa u diinka. dhinaca ganacsatada axmed weli xasan sharmaarke, sheekh maxamed ibraahim geelle ama geelayaasha loo yaqaan, iyo canab maxamed nuur. 3daa xubnoodna dhinaca ganacsatada ayay kasoo galayaan. marka guddigaasi waa guddi isu dheelitiran oo ah qaybihii saameynta ku lahaa bulshada marka laga reebo dhinaca dowladda, dhinacii dhaqanka, dhinacii culimada iyo dhinacii ganacsatada. si iskaashi ah 9 xubnood inay noqdaan guddigii yaboha ururinta dhaqaalaha dib u dhiska suuqii gubtay ee magaalada Jigjiga. waxaa jira guddi hoosaad si hoose uga hoos shaqeyn doona guddigii sare ee markii hore aan sheegnay. guddigaasi waxaa lagu magacaabaa guddi hoosaadka baadhista, qiimeynta iyo diiwaangelinta hantidii meesha ku baaba'day. waxayna ka koobnaan doonaan xafiisyada sida gaarka ay u khuseeyaan howshaasi: xafiiska maareynta masiibooyinka, xafiiska haweenka, xafiiska ganacsiga, xafiiska nabadgelyada iyo xafiiska maamulka magaalada Jigjiga oo ah maayarka. 5 xubnood waxay baadhis, xaqiijin, qiimeyn iyo diiwaangelin hanti ku sameynayaan wixii
khasaare ahaayee suuqaas ka dhashay. guddiyadaas isku dhafka ah si guud waxay yeelan doonaan kulan maalinle ah maadaama suuqaasi dhaqdhaqaaqii nololeed ee bulshada uu saameynayo si degdeg loogaga gudbo xal waarana loo helo. guddigaasi shaqadooda joogtada ah maalinle ayay noqon doontaa inta xalka guud loo gudbay. laga bilaabo berri waxaa loo gudbayaa nidaamkii dhaqaalaha loo ururin lahaa iyadoo guddigaa isku dhafka ah ee culimada odayaasha dhaqanka iyo ganacsatadu ay soo sameyn doonaan accounti guud oo lagu ururiyo dhaqaalaha lagu yaboohayo dadka wax la baxaya ay kula baxayaan. kadib marka la yeedhiyo accountnadaas waxaa la guda geli doonaa dhaqaalaha la yaboohay sidii lagu qaban lahaa. intaa waxa dheer berri waxaa noo qabsoomi doona haddii alla idmo shir lala yeelanayo dadkii ganacsatada ahaa ee meeshaas hantidooda ku burburtay. dadkaas waxaa la weydiin doonaa talada waxaana laga qaybgelin doonaa talada habkii dib u dhis loogu sameyn lahaa suuqaas magaalada Jigjiga iyo ganacsigooda siday uga soo kaban lahaayeen khasaarihii meeshaas ka soo gaaray. guddigaasi ma ayna tira ahaan laakiin waxa iska dooran doona ganacsatada marka berri shirka loo qabto haddii alla idmo guddiga ay iska doortaan ganacsatadu ayaa waxay kala shaqeyn doonaan guddiyada kala duwan habkii suuqaas dib loogu dhisi lahaa qorshihiisa habkii ganacsatadaas diiwaankooda loo diyaarin lahaa dadka meeshaas hantidooda ay ku burburtay nidaamkii iyo aaminaadii isku xidhka dadkii halkaas wax kaga yeeloobeen hantidu iyo maaragtay dawladda oo gurmadka iyadu hogaaminaysa. si guud dadka meeshaasi intaan qiyaasayna way ka badan yihiin oo dadka ay halkaasi maaragtay noloshoodu saameysay waxa ka mid ah dad badan oo xamaalata ah dadkii meeshaas u xamaali tagayay dadkii kaariyoonaha halkaas la tagayay dadkii shaaha ku karinayay dad badan baa qultul daruurigooda ka dibiraya. marka noloshani ma saameynaysa ama gurmadkani ma saameynaya kaliya dadkii dukaanada lahaaye waxa la isku dayayaa haddii alla idmo in sidii suuqaas baahi dad badan u daboolaya habkii ku haboonayd looga wada tashto haddii alla idmo si guudna hooshani si maalinle ah ayaan warbaahintan ula wadaagi doonaa haddii alla idmo aad baad mahadsantiin.